iyadoo Soomaaliya dadku ay yihiin kuwa isku dhaqan, isku af iyo isku diina marka la barbar dhigo dalalka kale ee qaaradda Afrika ayaa haddana waxa kala qaybiya Soomaalida nidaamka qabaa'ilka oo ka kala dhiga gob iyo kuwa aan gob ahayn waa sida ay sheegaan bulshada la quursado waa qayb yar oo la takooro kamida bulshada waxaana ay la kulmaan dhibaatooyin badan oo leh dhaqan dhaqaale iyo bulsho waxa dhibaatooyinkaasi sababteeda leh qaybaha kale ee qabaa'ilka Soomaalida haddaba warbixin arrintaasi aanu ku eegayno waxa inoo haysa Suhayba Maxamed Badqas guurka Soomaalida ayaan ahayn oo kaliya xiriir u dhaxeeya arooska iyo aroosada balse sidoo kale waxa uu yahay xiriir u dhaxeeya qoysas iyo qabiilo bulshada Soomaalida dhexdeeda ayaa isdhexgalka guurka ku xidida balse xaaladda qabiilka gabooyaha ayaa ka bedelan qofkii ka guursadana waxa uu halis ugu jiraa in la dayriyo Sahra oo aanan ahayn magaceeda dhabta ah ayaa waxay jeclaatay wiil gabooye ah 18 sano ka hor guurkeeda looma arkin mid lagu farxay oo mudan in loo dabaaldego balse waxa loo arkay mid ceeb iyo sharaf dhac ku ah qoyskeeda marka la weeriyay oo mula dukaanka tagalay ereeday iyagoo shan markii la ereeday markii la gaar waay markii damana aan dhacay masaa u dhacay shan mulana beer baan u dhacay miirka markaas iga tagay aniga gabadhayga bas waxayo miirka iga tago naxdin iyo isku kayda sameeyay kufitaankana kufay ayaa meeshii la iga soo qaaday qabiilkan oo wajaha inta badan dulmi iyo takoorid ay kala kulmaan Soomaalida kale ayaa haddana dadka ka dhashay waxay leeyihiin farsamooyin kala duwan oo ah kuwa Soomaalidu ay ka faanaan toddobaadmeeyadii madaxweyne Siyaad Barre ayaa soo saaray sharci diiday faquuqa ka dhanka qabiilada laga tirada badan yahay magaalada London ayaan kula kulannay Maryan Mursal oo ka mid ah fanaaniinta caanka ee Soomaaliyeed waxay aaminsan tahay in dadkeeda ay u istaagaan cadaalad darrada lagu hayo qof walba wuxuu isku sameeyay ayuu noqonayaa hadda adiga hay iska dhigtahay baa tahay hadda loo iska dhigtay loo baa tahay marka anigu waxaan dhiraa dadka oo reerahan ah oo anigu aan ka tirsanahay inay isku kalsoonaadaan baan ku waanin lahaa oo nin walba qabiilkiisa ku kalsoonaado oo gacanta saas kor u hayo dad badan oo ka tirsan qoomiyadda gabooyaha ayaa bilaabaya inay u dagaalamaan xuquuqdooda xaaladda ayaana si tartiib ah isku bedelaysa balse ma fududa qarniyo badan oo ay soo socdeen faquuq in la soo afjaro aniga inaan dhalay aade ayay inaan isticlaadeen inaan aan dhalay aniga waanan inantana waan inii keeni karaa waanan ina tusi karaa markii la isku kaayo geeyey odayadii ee la doonayay inaan u meeriyo ayaa la yidhi waa qolaba waa Muuse Dhariye baan oo Muuse Dhariye gashaa iyagu iyay gashaa Muuse Dhariye kolkaasaan waa dadkaad u taqaaniin gabooyaha ama midgaha de kuwa isma banaan guursan karina waqti dambe aad bal aynu balanna baa la yidhi waalidiin badan sida Sahra oo kale oo ku nool Hargeysa iyo Cabdi oo ku nool London ayaa ku dadaalaya in ay ka ilaaliyaan caruurtooda faquuqii ay la soo kulmeen balse waxa ay sidoo kale og yihiin in bedelidda dhaqan soo jireen ah ay qaadanayso muddo dheer taasna waxay xilli dambe ku tahay jiilka maanta jooga Suhayba Maxamed Badqas BBC haddaba si wax looga wacyigeliyo bulshada lagu hayo dhibaatadan la quursado ayaa abwaan Yuusuf Cismaan Cabdulle Yuusuf Shaacir waxa uu ka tiriyay tix gabay oo ku saabsan arrintan telefishinka BBC Somali ayuu la wadaagay gabaygaasi waana kan dadkan muuqa noloshiyo darajada aqoontiyo doorkii waxgaradkiyo dawlad saamigeediyo degmo nabad u taaliyo ruux duunya haysto dekadaha wax keeniyo nin darmaan ku boodo magaciisu duuliyo damaciyo hankoodii laga saaray daahee duutiga xadgudubkiyo dafiraada nacabka ah daris lala wadaajay dudo lagu ilaawiyo lagu ooday dayrkee dalanbaabi socodka ah dembigay galeen iyo waxa loogu dowgalay dacwad laga dhagaystiyo weli dood ma laga furo sida duulkii Falastiin ama dayrkii Baarliin ama doolkii Serbiya dulligiyo iswaagiyo dhulkan lagu darleefay darxumadu ka oloshay diihaalka lagu qabo dambarsiga abwaankiyo hal abuurka deexda suugaanta kuma darin dabadiyo shisheeyaha dalaan cidiba gaadhayn haddii gaal ka soo dego dumar loo aroosiyo daraja la siiya daruuraha hilaaciyo ninkan dooga kula yaal daris iyo qaraabiya dalka ay wadaagtaan diintana islaamka hablihiisa diib kale maxaa looga didaya